waxa ay ahayd mid ay soo wajahday dhibaatooyin kala duwan dhanka nolosha. waxa ay la kulantay tacadiyo badan oo kufsi ka mid yahay. muddo badan ayay ka dhacsaneed nolosha, waxna ay noqotay mid saaxiib la guuldarrooyin badan oo isaga daba yimi. balse waxa ay noqotay gadaal haweynayda ugu caansan taariikhda telefishinada Mareykanka, ahaydna haweenaydii ugu magaca dheereed hablaha warbaahinta dunida, lahayd magaca dumar ee ugu saamaynta badan dunida, taasi oo aanay awood u lahayn inay daaha ka rogto awoodaha rabbaaniga ay ku kaydsanaan nafteeda haddii ay isu dhiibi lahayd noloshii adkayd iyo dhibaatooyinkii darnaa ee ku gadaanaa waayaheeda. balse dadaal iyo isku day badan oo jihaysan kadib waxa ay kadhay inay noqoto haweenaydii ugu saamaynta badneed dunida waqtigeeda. Oprah Winfrey waxa ay dhalatay 29 bishii kowaad sanadii 1954 Mississippi, Mareykanka ayay ku dhalatay. waxaana ay ka dhalatay qoys uu saameeyay faqri aad u daran, waxaana iska dhalay laba waalid oo aanan marin wadada guurka. maalmo jacayl la isula wadaagay inay isku reebaan dhalaan yar oo noqday inan ay barbaariyaan awowaheeda hooyo iyo ayeeyadeed, ilaa ay ka soo gaartay 6 jirkeedii. markaas oo ay ku biirtay iskool lagu xanaaneeyo carruurta. yaraanteediiba waxaa soo food saadhay dhibaatooyin nololeed oo faqri, gaajo, darbijiifnimo iyo in lagu aflagaadeeyo in ay tahay farqad ama garaacad ay ka mid ahaayeen. nolosheeda dhibaatooyinkan soo wajahay kaliya kuma aanay ekeen faqriga iyo kuwa la midka ah, balse waxaa jirtay xadgudubyo jireed oo kufsi iyo tacadiyo kale ah, kuwaasi oo ay la kulantay markii ay jirtay 14 sano. waxaana xadgudubkaasi u geystay shakhsi ay qaraabo dhow yihiin, sida ay sheegtay iyadu mar ay ka hadlaysay nolosheeda. waxaana ay qaaday uur, balse nasiib yari ilmaheeda looma qorin inuu sii joogo dunida oo yaraantiisiiba waa uu saqiiray. dhibaatooyinkan ku dhacay iyada waxa ay saamayn toos ah ay ku yeesheen nolosheeda, iyada oo qaangaarnimadeediiba saaxiib dhow ka dhigatay isticmaalka maan-dooriyaha, xad aad u fogna ka gaartay ilaa ayba isticmaashay herowiinka iyo kokayiinta oo ka mid ah kuwa ugu saamaynta badan maan-dooriyaha. waxa ay nasiib u heshay waqti sannado ah kadib in la geeyo goob lagula tacaalo isticmaalka maan-dooriyaha, halkaasi oo lagaga jaray la qabsiga isticmaalka daroogada. Oprah muddo kadib waxa ay dib u heshay xorriyaddeeda, waxaana ay ku dhiirigelisay nafteeda inay bilowdo isticmaalka awoodaheeda si ay uga gudubto mugdiyada nololeed ee soo wajahay. waxaana ay bilowday inay ku biirto kooxda khudbadaha iskoolkeeda, taasi oo saamayn dhow ku yeelatay soo bandhigista hibadeeda. waxa ay ka baxday jaamacadda tennis ee Mareykanka iyada oo baratay fanka masraxiga, waxaana ay ka mid ahayd ardaydii ugu horeysay ee madowga ah ee ka baxa kuliyadaasi. sidoo kale waxa ay waqti aad u yar kadib noqotay inanta ugu qurxoon madowga Mareykanka, taasi oo u soo jeeday in indhaha si gaar ah loogu hayo. waxaana ay ka shaqo bilowday idaacad iyo telefishin maxalli ah, halkan oo bilow u ah nolosheeda xirfadeed iyo bilowga nolol dadaal badan u baahan. 19 jirkeedii waxa ay u wareegtay inay ka shaqeyso telefishinka Richfield, iyadoo waqtigaasi loo ogaaday inay tahay wariyaha ugu da'da yar garoomada wararka. balse waxaa durbadiiba soo food saaray guuldarro, waxaana laga joojiyay wartabinta sabab la xiriira inay ahayd qof caadifi ah. sidoo kale waxa ay isku dayday inay tabiso barnaamijyo dhowr ah oo ka mid yahay barnaamijka cunno karinta ee TV-gaasi ka baxa, balse waa laga joojiyay ilaa ay isku dayday inay noqoto jilaa dhanka filimada ah. waxaana jirtay in ay dhowr jeer xigxiga ay ku fashilantay isku daygaasi, waxaase ay isku day badan kadib nasiib u heshay inay ka qayb noqoto filimkii la oran jiray The Color Barbell oo soo baxay 1985, kaasi oo loo sharaxay 9 bilood oo Oscar ah, iyaduna ay qayb muhiim ah ka ahayd. 1989 waxa uu bilowday waa cusub oo dhanka saxaafadda ah, waxaana uu ahaa isku daygeedii ugu awoodda badnaa, kaasi oo ay ugu dambeyn ka heshay magac iyo mansab dhaqaale oo aad u weyn. waxaana ay soo saartay barnaamijkeedii maalinlaha ahaa ee magaceeda ku baxayay ee la oran jiray Oprah Winfrey Show. barnaamijkaasi oo looga hadlayay arrimaha bulshada, dhiirigelinta kuwa guuldarraystay iyo kuwa hanka leh, ka warbixinta ciidaha guulaha gaadhay iyo walxaha ay xiiseeyaan shacabka Mareykanka ah, kaasi oo guulo tiro la gaaray ilaa uu ka noqday barnaamijka koowaad ee dalka Mareykanka, dunida oo dhanna ku baahay in ka badan 100 dalna gaaray. barnaamijkeedu waxa uu ahaa mid hawada ku jira 25 sano, waxaana ay soo afmeertay 25 bishii May 2011 iyadoo waqtigaasi baahisay inay soo gabagabaysay waayaheeda saxaafadda.
hantideeda hadda waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 2.8 bilyan oo dollar, waxaana ay tahay haweenaydii ugu horeysay ee Afrikaan ah ee ka mid noqota kuwa malaayiinka hantida u leh. nolosheeda lama oga inay guursatay, waxaase 1986 u bilowday nolol jacayl oo kala dhaxaysay qoraayii haddana ganacsadaha ahaa Stephen Graham. kadib muddo ay wada socdeen sababo aan la sheegin ayay u kala hareen. Oprah Winfrey waxa ay si joogto ah u caawisaa dhibanayaasha maraya heerarkii ay nolosha horay iyadu uga soo martay. caawinta dhibanayaasha qaba cudurrada HIV-da iyadoo iskoolo badan ka samaysay South Africa, waxaana ay sidoo kale leedahay hay'ado samafalka ka shaqeeya. waxay uga gudubtay nolosheedii yaraanta ee adkayd isku day dhibane yeelasho iyo dadaal socday, shaqo adag iyo isku day aan dhammaan ilaa ay ka noqoto mid ka mid ah kuwa guulaystay kana tagta buugaag taariikheed oo aad u ammaano nolosheeda, xitaa iyada oo dhibaatooyin kufsi ka mid yahay ka soo gudubtay. haddaba daawada waxaanu kugu dhiirigelinaynaa in aadan marnaba ka harin nolosha tartanka loogu jiro, xitaa guuldarro walba oo ku soo fool saarta nooca ay tahayba. fadlan nagu dhiirigeli subscribe iyo share deedna ka hel channelkeena taariikho dad nolosha guula ka gaaray iyo warbixino xiiso leh. mahadsan.